waaya kusoo dhawaada barnaamijkeena MTV Somali Channel oo mar walba u taaganaana inaan ka hadalno arrimaha dalkeena ka taagan haddii ahaato arrimaha gudaha ama arrimaha dibadda. maanta waxaan rabnaa inaan xoogaa falanqeyn sharcigi oo maamul gobolada iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kusoo wada go'aan gaareen magaalada Muqdisho oo ahay sharciyaha oo u ahayd jaraanjar dhuusamareeb 1 2 and 3 kulay waxa wada ognaanay sharciyaas wuxuu awood siiyay ama wuxuu legalize oo ka dhigay 4.5 in mar labaad lagu noqdo. waxa wada ognaanay shacabka Soomaaliyeed saddexdan sano ee barta la soo dhaafay in haweeney maalin lagu waday doorasho cod iyo qof dhacayso kuligeena aan wada danaaneynayna in fursad aan u helno inaan challenge ku noqono dadkan oo ama gruubyadan oo siyaasadda Soomaaliya gacanta ku haysto. Professor Cabdullaahi T oo aqoon-yahan oo falanqeeyo arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshooyinka. Professor T wuxuu leeyahay kanaal oo la dhaho shacabka runta hala sheego kanaal oo aad ku wada biiri kartiin kulay linkiga hoos ayaa soo dhigi doonaa. Professor T, welcome to our show. Assalamu alaikum. Well, Professor, thank you very much for ina mar labaad noo soo noqotid barnaamijkeena. waxa wada ognaanay shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo baarlamaanka iyo maamul gobolada in heshiis guud oo loo wada gaaray oo ku xisaabsan doorashada soo socoto 2021. kulay 1.1 man 1 vote ama 1 woman 1 vote ayaa wada sugeeni way dhici weysay. haddana 4.5 oo hore aan noqonay oo la wada dhacay ayaa ku soo wada noqonay. Cabdullaahi sidee aragtaa ama fikirkaada aragtadaada sidee kula tahay heshiiskii oo baarlamaanka ay ansixiyeen maalin dhaxdaas? والله تو ما ستين مكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة كسعودة بارمان كشالة لو الدوضي ومعناها دورش لو الدوضي أيلا إستورتي الشيء ماشي خم كله أيلا إستورتي وعشك دورتين نول بو ولا وتا قف كستورة قلبت كوتا عربتها وتان لكن شعبك وحب دورن كو متكلة دورش قف عد محاد دورش قف عد ودوين كنضيف مياه gobolada wadooyinka gobolada Soomaaliya dhaxdooda iyo xamar dhaxdooda nadiif miya hadii nadiif noqoto qof cod waa la helaa oral uu helaa laakiin kormeel waay inta ay isdoorahan kuwan alla u naxariistay maxamed bar waxa la hay nin dooran xaw dhaxdeen sababta ay isdoorahooyo maamul gobolada iyo kuwan dawladan iyo kuwa iman doon ay isdoorahooyo isku doorahayn waa la wada wataa lacag la gilihooya qarash la gilihooya. لكن الحمد لله Soomaaliya toosaysa weena soo socotayna toosayso. Cabdullaahi marka waxa wada ognaanay 3.5 years saddex sano bar ayaa maalin iyo haween lagu waday doorasho qof cod dhacayso doorasho cod iyo qof dhacayso. shacabka Soomaaliya in hadda isla marka loo soo wada jeesado oo la yiraahdo doorasho cod iyo qof ma dhacayso shacabkiina oo rabaa in ay u tartamaan degmooyinkiina suurtagal ma noqonayso. waxay hadda noqonayaan 4.5 min ceelna waxay tahay kuwa hadda jooga soo noqonaya saa wada ognaan isa hadda noo tilmaamtay. yaa la saari karaa marka accountability yaa la xisaabtami karaa who is responsible adii karnaa waxa mas'uulka ilaahay ka shaqo waxa mas'uulka wadamada reer galbeedka carabta sababtoo lacag ay wataan ayaga maalgeliyo shicibka u qiimale sababtoo ah shicibku way daaleen de wax sheegan تيشيغا ولا حرا ادو رسودها ولا ديلا ماشان ايغا استورتي sababta isku doorteen si wax u dhici lahaayeen si wax u qabsan lahaayeen isku doorteen ma ahan shicibka yaa marmarsiya laga dhaaf shicibkii wax loo keeno waa doorhay shicibku wax loo geeno mid kale ma jirtaa hadii la doorshiyo qof cod sababta waxa jirto degmooyinka lacag masaakiinta gobolka banaadir lacag la siihaa $6 degmooyinka la soo aruuriye degmada keena waa dooran hebel waa dooran $6 si baahi lahaaso laakiin si dacwad ma lagu hooyo ani hore u sheegay diyaaradaha diila jooji gobolada aad baabur lagu aadin waagi siyabra la una xariisto haa fiicanta qof cod la hela laakiin hadda waxa socota maamul kasto tuuwa sababtoo waxa wax u heli lahayn si wax u lahayn rabaan sababtoo waxa shicibka meesha ma kulluho
waaya professor waxaa tilmaamtay in kulay waa wada ognaanay in Soomaaliya siyaasadeeda ee gacan shisheeyo ee aad ugu leedahay maxaa ku dhahay dhaqdhaqaaqyada ma kulay anaga waxaa rabnaa inaa codi qof ee dhacdo because codi qof haday dhacdo aniga fursad helay professor adiga fursad helays inaad degmada soo tartamtid oo ku soo baxdid yani waxaa fursad helaya deegaanka dadka deegaanka ah oo matalayo hadda hadii 4.5 loo noqday wadamaha shisheeyaha ayagana riixayaan 4.5 ma dhihi karnaa marka dawladda Soomaaliya way fashilmantay ma lagu dhihi karaa marka arintan ها سفعان sababtoo ah waxaa soo arnay oo maanta waqti cali mahdi ilaa waqti hadda farmaajo dadkii madaxa ahaayeen kuwa nool oo kuwa dhintay Allah u naxariisto kuwa hadda jira oo nool waagaasi oo hadda joogo waxay qabteen iyo waxay sameeyeen ma leh meesha waa loo jeebka in la buuxsado oo la socdo haddana bir la imaado jeebka la buuxsado hadda fiiri doosha si socoto laba kunaad kooda waxay maanayaan xidwaana ah lacagtay ka dhaceen dowladda sheekh iyo lacagta intay wadankan ka dhaceen farmaajo ganacsatada siiyeen ganacsatada ka ku shaqeeyay ganacsatada ku heshiiyeen doosha amaanaso war 300 si 500 si oo kun dollar hadana marrat waa ku sii hena ana cod fand marka kuwaasi intee la geeha lacagtay haastaan ganacsatada awooda haayo ku shaqeeyay maanta doosha la gaaro nin walbo xidwaan war hebelo 500 kun si hebelo 500 kun si doorshi qof 4.5 wax kale ma jiro been isku sheegay adka been sheegay professor hadii aniga naftigeyga oo aad doonayo inaan noqdo xildhibaan waxa ogaa in lacag badan laga rabo oo ergooyinka hadii ahaato ama hadii ahaato oo dhaqameeyada ama wax walba oo gudiga farsamo yaqaanka waa kulay waa adiga shirkad isku wada ah maxaa ani sameey karaa hadii aaro inaa doorashada ku soo qayb galo lacagna ma haysti magacna ma lihi laakiin deegaankii waa laga yaqaanaa deegaan bulshada ka dhashaday magacii saddexaad magacii afraad waa la yaqaanaa maxaa talaabo ah qaadi kara hadii aaro inaa xildhibaan aan noqdo sanadkan soo socdo ma dhacayso sababtoo ah dadkii iimaanka ka tagay oo dhaqameedkii culumadii wax kasto iimaanka ka tagay lacag la bare lacag fudil barne qofka fiyo oo daacad wadaniga la qiimeeyaa tuugi ala qiimeeyaa tuugi is lacag wata waro wax u dhacay lacag wasta oo dhaqameedina waa jaahilin macnaha wax walba jaahil lacag la dhiibaya ganacsiga lacag dhiibo saahib lacagtaas qaado kaastamay had tusaale ay ka soo qaad wasaaradda arrimaha gudaha kale waqti ka wada leeyahay ilaahay awoodhe lacag la soo afaaran ka baxlooya wasaaradda macnaha oo boosiis gaarsid sidoo kale afaaran ka baxlooya sababta lacag socoto waxa dad isku sheego wax walba toosan iyo wasaaradda arrimaha dibadda kale lacag socoto ganacsiga lacag dhiiboyaan reerka lacag dhiiboyaan wadamada carabta lacag dhiiboyaan sababtoo ah inta laga helayo qof iyo cod koormee waa su'aal haddii wadooyinka la safeeyo Soomaaliya oo dhan iyo gobolada oo dhan iyo tuulooyinka isku xiro la safeeyo oo ciidamada la siiyo $600 ala qof ama $1 la siiyo aan ka soo qaas $800 la siiyo ciidamada qof kasto $800 ilo $200 gunada la siiyo wadankaas nasiifunu qaha laakiin yaa samee karo nin ogol dhimasho iyo nolol oo wadani ah oo la joogi karo wadada socon karo kulistaha ciyaar suuqa aseeyaha la sheekaysan karo waxa la cuni karo kaasaa samee karo laakiin is dooraayo ma samee karo ciidamada haddii la siiyaa $800 bishii $200 la siihayo wadooyinka dhan waa la safee karaa laakiin ma la rabaa waa haay maya waaya professor aada u mahadsantahay professor maxaa ku talileen bulshooyinka Soomaaliyeed horta maadaama dad waa ognaanay xildhibaanadan mandate-ka u taagnaa waxay ahayd inay ansixiyaan dastuurka iyo in doorasho cod qof ee dhacdo ee la shaqeeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimahaas ma dhicin amnigana kulay magaalooyin badan waa jira iyo deegaano badan oo hadda anaga 4 sano ka hor waxaa xasuustaani inaan baabuur ku kaxnay oo aan ku tagnay Jowhar aan ku soo noqonay hal maalin gudaheeda oo wax dhibna la arkin hadda lama sameyn karo marka maxaa ku talileeyeen shacabka Soomaaliyeed xildhibaanadooda
oo ayaga matalo sidee accountability ay ku sameyn lahay xildhibaankooda midoo ku sameyn karaan waxay ku sameyn karaan xildhibaan kasto inuu u tagmo oo dhaqameedkooda iyo culummadooda waa inuu dhexgalaa shicibka oo ka dhashtay kan darbiga jiifo kaa jiifin kan shaqaysahay inuu isbaro oo la shaqaysto sababta kuwaas xildhibaan u yahay ee oo dhaqameed muu aho culummad muu aho kuwaas u yahay xildhibaan laakiin kuwaas isii misbaro karaan waa su'aal mid labaad xildhibaanka waxaa lagu xiraa shicibkaas dhexgal shicibka anaga maamulno oo dhaqameed anahan culummad anahan aniga waxaan sii aniga ku doorheena shicibka iska dhigayaan taasna waa mid kale tan saddexaad xildhibaanka musameyn karaa oo dhaqameedka iyo culummadooda iyo shicibkooda ama isku keeni karaa ma hali karaa ma sheekaysan karaa fahanti in la wareysto oo ayaga la wareysto la su'aalo wax kastoo la halo haddoo nin iska halo waa hadashay bax ayaa la dhihin hala weydiiyo marka sababtoo ah waxay dhammaankan isna midaa jirto isna tuug kala waaye lacagii oo xaday wuxuu taagan yahay anaa gata booska lacagta markii u baxday waa soo ceshahaa kow xildhibaanka marka la doorahaya meeqoo bixi karaa marka madaxweyne soo shirayso $1,000 waa lacagaas dee la geehoyaa dibaddaa la cunoyaa sababtoo ah waxaa waa la ogyahay $30,000 daawatid madaxweyne soo shirxi kartaa laakiin haddaa wada ma soo shirxi kartid cabdulaahi waxaa wada ognaana xataa xisbiyo badan ayaa jiro oo isdiiwaangeliyey oo lagu amri jiray inay isku diiwaangeliyaan gobolada dhan oo Soomaaliya badankooda waa sameeyeen qarash badanna waa ku baxeen xal waxaa u jeednay xisbi ka tirsan xisbiyada Soomaaliyeed oo dhahayo anaga qarash badan naga baxay diyaargaroow waana la dhahay waa diyaargarownay doorasho cod qof mana dhuceyso marka qarashka aagalnay yaa ka mas'uul ah horta marka u raasay yaa soo sii xisbi lacagtaasi intee ka keenin taasoo su'aale xisbidaasi macnaha hadda Yurub waa ka imaanay Yurub baa arkay waa joogi jiray markii doorasho dhacdo gobolada shicibka wax walba u balaqaana wax walba siinayaan runtooda haat aan beentooda haato laakiin Soomaaliya runi been ma taqaan waxay taqaana ani hadanaysto doorasho qabheena soo shirxeena hadoo ninka waxaan siiheno wadigan ogolaheena saamwa ay ku jiraan xisbida marka xisbida hadda intee doorasho imaanin waxaa la rabaa xisbida inuu wadooyinka sameeyo dadka wax uu sheego dadka isdhexgalaan oo wax qabto alwa si macna xisbigaas loo arko inuu wadani yahay oo fiican yahay laakiin xisbi tahay yaa u tahay ala asku ay wax cunti dadka soo shirxad halu janjaraan u fuuleysaa kabacdi waxa la isaaminay aqaan afan marka shicibkan yaa been loo sheegay waa mudana aad amaasan tahay waxaa la rabaa hadda hoos u sii galno maamul gobolada inaan ka sheekeysano waxa ognaanay dowladda Hirshabeelle maamulka Hirshabeelle ayaa doorasho ku soo food leh bilooyinka la soo socdo sidee u aragtaa doorashada oo ku soo socoto Hirshabeelle والله شبيل هورت إننا أخدنت الله أو نحرسته محمد دير الله محمد عمر حبيب محمد دير أخدنت هير شبيل كو حد الجوجو ما مكسب حي منا حتى كور تدسوش الحي من حيني أو هير شبيل هو حاق بهنا وحاق بهنا وحق قبطان ماله بين واحد تذكر بين الرشوق مساكنته هير شبيل وانكو الله محتوان نرى مثل شعبك حد حدوان اللي يهين العالم فيه أموس هرتم شيء يعني حد إنك هرت الشيء والعلامة ليسها هي هبل هرسوعنا أما هبلها هرسوعنا اللي هي ما فهمت مع هرت مرة هي الشبيلة ثابت هرت ما إله ما كعب سوهنا نسبنا هي الشبيلة عواري وبيج باركي وبيج هيران يجوهر وحقبت ماله والدليلها أنت أول عالم عنويا وإجيلان هي الشبيلة ومهني هي الشبيلة واري الجولة سيدو كله شقدوا ما واحد ما يحب باش شقدوا ما سببته طول في سهين طول في سهين سببته حواي مساكين تدكن العتلة خالة عن شو تلا خالة وحوا دمبوا حتى الله من عند محمد هي الشبيلة لو هدي لو جتو أو بيرك إسلام كشو أو بيرك كشو عنتو لو ده نكله مجنحة ونهرة ميو بيت اللي عنا العوص يا محمد نفعنوا هاي لكن محمد دير كل ما له الكرم
محمد لكم ما هلكر صوبته هاو نفي عن نفي عن موارد ودمها وهذا مصيبة جت هي شبه كل ولد توجواي كل ما كل توجواي قدومي أبارما كنت مشيكرو قدوم كحيجي كنت مشيكرو على الجولة مشيكاي واروت مشيكاي هل قدومي أفعن أو عنب له عنب لها أو قدومي كحيجي بارانك هي شبه وأناك تنافي عن واي صوبته إلهي تخانا إلهي كعبست إيمان الله رت شيء واحد هاد اتصال هي شبه قبل الكلام معمر اسمه مرتخال اسمه هي حفلة اسمه هي شبه مع حفلة اسمه ويس محلو إماوة محتاج سؤال ويس قبل محسوب ويس هذا الكل مدك بحيث ما سي معمر لي خاب شيء فهمت قفل كبرت سيدو كله فهمت كسماي سيدو كله هي شبه الحاودي دي حاسد سكين هي شبه ما يكتوسي ذكر هالوديو هي شبه معنا حوالي أبقى المسمى له ومذكر الدكان ومذكر هالوديو هالو بروي محجره قسم ما متين جوجان حوالي أبقى ما الحال ما متمشي وين جوجان قبل كان كانوا هات السال المذوق كالفير حافة حكومي على قاري وقريب ما شاء الله هو ساسة لبهاية الترتيب مثلا تالي فهمه الشبل أو شيء دي اللي مقلايو عمل مقلاي الشبل دكانوا أما هيران أما جوار مالك استدكان ما تذكر هلو بروبي مع سومال ما نأيجا. ويا بروفيسور آدم ما سنتهاي بروفيسور وحقول لنا هذا وحاسو ساعة الدور الشذا جود أو سوماليا كده دونتو سيل في اللايو 2021 حكومة دان هذا الدولة دان هذا جرتو عد يقف وقويسي أرمى دستور كنا وكلي ودمي وين وستيل وقبيو دولة حش شكل السيرة وكلي أيجو قبيئة أي شغلة كتيان دولة الصوص ساعته بروفيسور maxaa ku tali lahaynay talaabooyin ugu horeysa oo ay qaadi lahayd waa su'aal fiican dawladda soo socota dawladda insha Allah oo Ilaahay gaarsiiyo waxa ku tali lahay kow ciidamada in qiimeyso ciidan wax sheegto dhan waa in qiimeysaa ka bacdi nabad wal helaa ka bacdi wax walba imaanayaan iyo in wax isku ogolaado laakiin waa ogahay dawladda soo socota kuwa kor waxa arki jirnay هي ولا فاناي بابا حاقب هنا لا بابا حشيق وارن فرماج وارن أنفنتي تاس مرمنا نيجا تاس مرمنا ما أنتي لا دور تو مدحين عصب ويمادو وداعت هتوين ولا حلا عيد ماذا وكبلنا كذا بيش يلح بقولوا دولار نسيها جديد بقولوا دولار سببتو أودن كان إله بالواقع الحمد لله الله نوسيادي الله نبركيو ciidan ka oo wax kasto sheegto ciidan sheegto ama nabsuud haato oo wax kasta ahaato waa inuu siyaasad $100 military-gani waa inuu siyaasad $100 sababtoo military ciidamada kala isku mid maahan nabsuudda ku xigtidina waa inuu siyaasad $100 booliska ku xigo waa inuu siyaasad $600 asluubtu waa inuu siyaasad $400 band iyo mid kale maxabista xeran ayaga ma in wax la baraa oo mushaar loo qoraa bishi $5 siyaa وحلو بالبراء سينيتو لو لسه فهمت وإيو إن كلا سعر واي هدي مدحيناس حسب إيمان دونو أكبرية ثلاث سيها يبارمك إيمان دونو هدي أو إيمان نوين بروفيسور محمد جواري نوين ما شاء الله دو إيمان وديك وتوسكرا لكن جواري نينو شقيه دو أركو وسمكرا لكن نكلا شقيه دو توجيه جواري مقابكرو مدحيناس مقابكرو هذا من الحين توجهي رفساري توجه جوارح مقابكرو هلاك لو ودي الدعادي هين جوار ودعاد جوار وانا لطشتا جوار وانا سعودية جوار وانا وين وحكستو اوجهي وحكستو يقانا وحكستو اركان وحور الشيء قاعد صبحين نكشل وش قيساي غير ما جوار عفير اله عفيه سبتو حواي بريت يلوش قيسين الوش تعمل ودنك بك مانا بحنا ايمانا يرزاره ايمانايو وإنه حالات إذا ما ظهرت كو إنه سيواي لحب قلم فهمت سأوصل شيء كبعد هالسنة ممكن ماشي نبض نقطه بحكي هالجارو هدين لكن عيد واحد بلا سنين ولا دعين واحد منه لواتو عبد الله دولة دان هذا جرتو وحكوا فانتا إن عيد ماذا مشاركة الأسيسو أدينا وعلى هاي مشاركة هاللو كرديو مركا budget أهان أنت لا كأنه كان على عكتاس مركا ما محل هاي موشينده hadday yaraatay
ma lacagta soo hartay ha lagu buuxiyo ciidanka ma leedahay sidee lacagtaas lagu keeni karaa marka oo ciidanka loo buuxinayo order fiidi madaxweyne ku soo sharaxay 6 kun la qaado ama $40,000 كو البورك وحق سكر عن شوت دكتة مقالة عن شورها موتوينك وحول عن شورها ما أنت تفير العقبة تعالى هدي الدعوة حلوقة بهاي هدي الدعوة حلوقة شقيها هاي العقبة تعالى سف تعالى العك هدي حلوقة بهاي أنا أقولها وحال هذا لكن بقولك طون هذا أما لا تعال هذا تيت أم سجاشن ودك هالجديد سيد يوروب العوي حدا وأغنى هني وانا خانة تقول لكن شغلين أبورتا guri dhista wax walba sameeysa wax walba qabto Yurub kale marka waa ogolahay waxa la xad laakiin madaxweynaha doob cusub imaanay ama wasaaraha cusub imaanay ama baarlamaanka imaanay waxa la xad laakiin wixii soo xiro wadanka la geliyo waayaha barnaamijkeena gabagabadiis ayaa soo gaarnay professor T waxa la rabnaa ku weydiino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka imaan doono shakhsi ahaantiisi ama xirfadiisi maxaa ka rabi lahayn inuu noqdo what type of president do we want for 2021 waxaa ka rabnaa madaxweynaha imaan doono qof kasto inuu su'aalaan isna oo su'aalo oo naxanaaka tusaale dilo madaxweynaha tuug waay madaxweynaha mooriyaan waay madaxweynaha saam waay hadii loo inuu waxba u qaadan sababtoo ah madaxweynaha noqoton wax kasta waana diyaar u hataa rabsiyaaraha keenaysana wax kasta diyaar u hataa waay وقت وين السؤال قف كستو السؤال أم شيخ هذا أم توك هذا أم موريان هذا وقت وين السؤال رسالة توك واي رسالة خبريست واي مدينة سوى كلواي سديل له وإنه كجبابة سببته شخص معناها محينا على دورت هديه على دورتي وهم حلقة ودي واي كو متكلم رجالها عصب إيماني محينا عصب إيمانه وشيء تذكر الشقي حايو تذكر الشقي حايو يعني ياكل الشقي دون أو التلفون ويقاسك وإيه waxa uu sheegay madaxweynaha imaan doono wasaaraha imaan doono waa in telefoonada ay gudbiyaan hebel ku soo baxay madaxweyne shicib waay tii isoobuco lidii alla madaxweynaha uu fiicnaa sheekh shariif waa baa yaarta sheekh shariif hoo isaan dhigi jiray qof kasta lidii oo dhigi sheekh shariif khayr allah siiyo hadii sheekh shariif soo noqdo dadka uu toosaa laakiin soo noqays umaleeya sababta xaasida buuxo reekabaa jooga arwa joogta laakiin madaxweyne kasta imaanayo وإن السؤال رفيان كلا شقي أمر رجالها رفيان كلا شقي عيال كلا شقيان حتى ما أنت رجالها العاي مدحين العاي من اللي حركة قفكاس سومالوا وحكس وين السؤال اسمه إنه ديار وهذا صوبتي أنا سنة السؤال أنا وسؤالنا قد كنا أسمعت أقول لك صوبي كرو وحلق ودي كرو مشارح مدحويني ومغشى ملينا بروفيسور تي وحو ديار وياهي إنه كل الشقايو والله runtii professor hadii aniga berito madaxweyne laga dhigi lahay adiga number 1 advisor laga dhigi lahay ma sha Allah waxa waaye waxyaabo badan la soo jeedisay oo runtii laga rabo madaxweynayaasha dambe imaan doonaan shakhsi ahaantooda xirfadaha iyo inay hadli karaan dadka qanci karaan ee mar walba diyaar u yihiin inay shacabkooda su'aalo ka weydiistaan iyo ka jawaabaan yani waxa la rabaa nin furfuran qof dhaqan leh oo diinta taqaano Soomaalinimada taqaano qiimaheeda oo isla weynin ayaa rabnaa anaga marka daawadayaasha aad u maastiin ku soo dhawaada barnaamijkeena MTV Somali Channel Professor T wuxuu leeyahay kanaal gooni ah waxa la dhahaa shacabka runta hala sheego channel runtii waxyaabo badan aniga Professor T waa ka bartay ilaa haddana kulli aniga waxa dhigi karaa waa one of the best waa aragnimada waxa waa loo dhashadaa waa wax oo jiro professor aad u maasan tahay runtii waxyaabo badan waa ka faa'iideysanay madaxweynahana imaan doono Professor T waxa rajeynaa inuu ku soo raadsado oo ka faa'iideysado talooyinka uu haysay dhammaantiin waxaan idin leenahay like subscribe comment share and please do not spread the word that MTV Somali Channel waxa waa platform oo Soomaalida ay ku sheekaysan karaan si xornimo ah freedom of speech thank you very much